بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الخالق محمود حاج أحمد oo loo yaqaan dirir waxaan halkan ku soo gudbinayaa gabay magaciisa la yiraahdo Gahayd. marka gabaygan Gahayd waxaan si toos ah ugu jawaabayaa Cabdirashiid Salebaan Galow oo loo yaqaan Cabdirashiid Heego Galow. gabaygana waa ka dharaar gaani geelayay oo gagi banaan jiifa oo lugaha kala gaabiyo guufka kicinaaye ninka gudin intuu soo qabsaday yiri anaa goori gedda uu ka leeyahay ma garan geeri waa u halise gardaduub in loo soo qabtaa gacalayaal niman yahow gabyaa iyo intii maasa garanaysa mareegtii garawsada raggii gabi balweynaayay gogol baan idiin dhigay dhammaan galowga mooyaane haddii aan gaf galay raaligelin guuna iga hooyo baruurtii si gaara u urtaa ee oodkac lagu gaadhay lagu giijay joogii hadhow gaanjo laga gooyey markii laga geliyooday ee goobtii laga yaacay inay goboodu qurunkeeda tahay uunka wada gaadhi aflagaado anigaa waqay gelinin suugaanta maantana inaan goof shubaa waa garaad yariye ha yeeshee gabyaagaan lahaa guudka sare weeye Heego Galow waxaan maansa tabin garab ku siinaaba gafar maalintuu soo tirshu galay wuxuu ahay haddaad garasho liitow itiri waa gafaan hadhine waxaad goobta keentaan ogahay hadafka kuu gaari gundhigaagu waa dirir dhiblaan dood la gelayaay guga kaama weyniya caqligu hibagal weeyaane googaalahaad soo dirtee gabayga aad saartay hal abuurka guud aad ku tiri gogoshu waatiina waa gacan samays iyo midkii geyray oo rarane guurtidu ha eegeen yagaan eexna galahayne jawaabtana ha geeyeen hadday garanayaan kaaga intaamaan gafina goor xun socod guure ma u diiday ma gawaan cad baan maalinimo gar uga maansooday maan gunaanadine waa xujiyo tudciyo kuu gaara haddaad garatid uun baad hadhow maan soo gelaysaaye haddii kalena gabay kaa xidhan gaado libinteeda dhaqankeennu guun weeye aan laga gaboobayne dawo geeda laga helo ayaad soo galgaal bixine magacooda oo gaar baan gacalow kahay haddii kalena gabay kaa xidhane gaado libinteeda col markuu u galo beelahee gabagabaynaayo dhalintoo dagaal galay markii dhaawac wada gaaro marka dhiigu gowleeyo oo laga gayoon waayo geedkee markaba joojin kara oo lagu guntaa meesha haddii uu xanuun soo gudo gaban la soo boogo guurahana meel la gaari karin gayigu waa miyi geedkee markaba kaar jaro lagu guntaa ruuxa boogtiyo jirkoo kaa gubtiyo nabar maqaar gaadha goosatada haleeshee qofkee gamaca kuu diida geedkee markaba dhayi karo nabarka kaa gudu goodkiyo abeeskiyo intii bahal gurgurtoo dhan ha xijaabo guulle kuwii micii wax gaadhsiiya geedkee suntaba gororsho oo lagu guntaa meesha intifaacsi geed noogu wacan gu iyo jiilaalba oo gayiga Soomaaliyeed goob kastaba beeran la guuhaamo goortii walbaba gudinna loo qaato magaciisa oo gaar baan gacalow kahay ilma falaga ruux garashan ogi guula kaga keenay lixda cirirka oo wada gudboon
iyo magac kastoo gaara iyo daalalida tirada gudan kala gorfayntooda inaad garato oo sheegto baan gacalow ka eeg dirishada intay guud yihiin kugu markii uu hooro iyo goonidaydadu halkay galaysa noo sheegba ibcas gabadha iyo wiilka gala dhalasho gaarsiisan maxaa lagu gartaa oo asta ah gurigay joogaan adigaan ka gowrgowrin baan gacalow ka eegi haddii kalena gabay ka xidhan gaada liminteeda taariikhda lama gadi karo gumuro soo yaale ninkii gabay la dhaho noo guntee godadka noo jeexay iyo kii gadaal uma furmine goor xun laga saaray labadaana noo kala guro gaar u kala sheeg ninka gees ka maansoon jiray ee garabna aan haysan iyo 10 gabya oo isaga guudka ka abaaray magacooda oo kala geysan baan gacalow ka eeg ninka maanso uu galay akhriyay saacad gudaheeda ee ninkuu u goodiyay u go'ay gabaygii dheeraaday labada adaan gees ka marin gacalow u sheeg gobonnimada noo soo gashee guriga noo taala wiilashii gadoodee barqada go'a castuurayay hindisoolihii geysiga ee guusha sababeeyey magaciisa oo gaar baan gacalow ka eeg gulufkii dagaal ee galbeed gumuca loo qaatay inta aan la tegin goobihii gaalku naga hiishay shakhsi gacan ka taagto isagu gees iskaga bayray oo yidhi gadaal bay imaan gaasas ina laaya magaciisa oo gaar baan gacalow ka eeg waa 17 hal xiraale oo ku socda Cabdirashiid Heegalow waxaana ku xusan hadduusan ka soo jawaabin inuu gabaygu inta ka horeysa intuu iska soo jawaabin ka xiran yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.